بسم الله الرحمن الرحيم وانكو سلامي داوده meel walbo aad joogteed ku soo dhawo mar kale qayb kale oo muhiim ah kuna saabsan waxyaabihii soo kordhay saacadii la soo dhaafay waa maalintii 45aad oo dagaal uu ka soconayo marinka Gaza waa 20ka bisha 11aad 2023 qaybtan waxaan ku ogaan doonaa dagaalka waqooyiga marinka Gaza ka soconaya waxa ka qasaaro badnaan doona dagaal ka dhaca koonfurta marinka Gaza sababtu maxay tahay muxuu Mareykanka waqti xaadirkan digniinta kaga soo saaraya in Israa'iil ay howlgal military ka fuliso dhanka koonfureed ee marinka Gaza maxay tahay waxyaabaha laga baqanayo maxaa marinka Gaza gaar ahaan dhinaca koonfureed ku aasan oo cabsida weyn ku abuuraya Mareykanka iyo reer galbeedka waxaan eegi doonaa qobarro dhanka militariga falanqaynta ay sameeyeen Hezbollah waxay bartilmaameedsadeen saldhigyo military oo ciidanka Israa'iil ay lahaayeen gaar ahaan saldhig guutada 91aad ay lahaayeen macluumaadka qasaaraha ka soo kordhay xasuuqa ka dhacay agagaarka cisbitaalka Indonesia yaa cisbitaalkaasi gacanta ku haya miyaa la go'doomiyay sidii cisbitaalka Shifa oo kale qodobo kale oo muhiim ah ayaa raaci doona soo dhawaada mar kale ka mid noqo saaxiibadeena aad baad u mahadsan tahay Marwa Fertility Center xarunta daweynta cudurrada keena dhalmo la'aanta insha Allah waad ku dawoobi la xiriir telefoonada shaashada kaaga muuqdo mahadsanid maalin dhaweyd waa tii dhanka Facebook aynu gaarnay 500,000 ruux inay nasoo follow gareeyaan ugu kalsoonaadaan oo ay la socdaan macluumaadiyada aan soo gudbino aad baan ugu mahad celinaynaa sidoo kale qaybta YouTube-ka waxaanu ku dhownahay wadadii aynu ku gaari lahayn 500,000 ama 500,000 ruux waxaana mar walba aan idin leeyahay waad ku mahadsantiin inaad ka mid tihiin saaxiibada walaalaha iyo waalidiinta igu xiran maadaama dadku ay heerar kala duwan ay ka kooban yihiin waxaana mar walba aan idinkaga mahad celinayaa kommentiyada ama aragtiyada aad dhiibataan kuwa telefoonka igala soo xiriira kuwa igarab taagan iyo kuwa ila shaqeeyaba mahadsanidin ayaan idin leeyahay mar walba waxaan ku dadaali doonaa sida aad iga barateen wararka xaqiiqada ah ee kooban oo aad xog badan aad ku ogaan kartaan mar walba inaan idinla wadaago insha Allah waad mahadsan tahay mar kale haddii aan u soo laabano wararka wargeyska Wall Street Journal oo ka soo baxa dalka Mareykanka wuxuu daabacay isagoo soo xiganaya mas'uuliin ka tirsan dawladda Mareykanka in Israa'iil laga dalbaday inay dib ay u dhigto howlgal military oo suuragal ah oo ay doonayaan inay ka fuliyaan dhanka koonfureed ee marinka Gaza ilaa qorshe rasmi ah laga dajinayo sababtoo ah liiri howlgalka dhinaca waqooyi ciidanka gumeystaha waxay galeen iyadoo wax qorshe aan loo dajin ama ciidanka Israa'iil waxaana lagu waramayaa taasi inay keentay waxyeelada ugu badan inay soo gaarto dadka rayidka ah sidaas oo kale dhinaca koonfureed waxaa jira marxalado badan oo keeni karaya in dagaalku uu ka qaraaraado kan ka dhacaya waqooyiga marinka Gaza la taliye ku-xigeenka amniga qaranka ee dawladda Mareykanka Jonathan Viner ayaa laga soo xigtay warbixintan sida wargeyska Wall Street Journal iyo telefishinka Al Jazeera iyo warbaahinta caalamka ay qorayso wuxuu yiri waxaynu aaminsannahay inuu jiro qorshe Israa'iil ay doonayso inay howlgal kaga fuliso dhinaca koonfureed ee marinka Gaza laakiin waxaynu u baahannahay buu yiri ugu yaraan howlgalkaasi dib in loo dhigo ilaa xal looga helayo dadka tirada badan ee ku barakacay dhanka koonfureed ee marinka Gaza sidoo kalena loo dejiyo qorshe military oo dhameystiran xalay kulamo ana loo kala harin ayaa ka dhacay magaalada Tel Aviv kulamadaas waxa isugu yimid wasiirka gaashaandhigga iyo wasiirka ka tirsan xukuumadda loogu magac daray xukuumadda dagaalka ama golaha wasiirada dagaalka ra'iisul wasaare Netanyahu ayaa qayb ka ahaa waxyaabaha ugu badan ee looga hadlay waxay ahayd go'doominta marinka Gaza gaar ahaan shidaalka oo Netanyahu mar kale uu ka dalbaday wasiiradiisa aragtidaasi ka soo horjeeda inay joojiyaan maadaama cadaadis uu saaran yahayna la ogolaado in shidaal la saaro marinka Gaza arinta labaad loo ogolaado in shidaalka la gaarsiiyo waqooyiga marinka Gaza gaar ahaan xarumaha hay'adaha caafimaadka iyo kuwa qaramada midoobay sidoo kale kulanka xalay waxyaabihii looga hadlay waxaa qayb ka ahaa siideynta maxaabiista iyo qorshaha wada hadalka inkastoo Israa'iil iyo Xamaas marna ay leeyihiin wada hadallada waa la isaga soo dhawaaday sidii hore marna ay leeyihiin xitaa tallaabo looma qaadin dhinaca wada hadalka ama siideynta maxaabiista arinta saddexaad ee looga hadlayna waxay ahayd howlgalka la qorsheynayo in lagu ballaariyo guud ahaan marinka Gaza gaar ahaan dhinaca koonfureed marka hore qorshuhu wuxuu ahaa in bartamaha ilaa waqooyiga marinka Gaza la go'doomiyo laakiin hadda waxa soo baxaya dhinaca koonfureed inay doonayaan wararkii ugu dambeeyay haddii aan eegno intaanan eegin qobarrada military iyo sida ay wax u taxliiliyeen aan ka hormariyo dagaalyahanada iska cabinta Falastiiniyiinta ayaa sheegay in 7 ka mid ah gaadiidka dagaal ee Israa'iil ay gubeen tan iyo waa berigii maanta waxay sheegeen inay ku gubeen dhinaca waqooyi ee marinka Gaza gaar ahaanna waxa lagu bartilmaameedsaday deegaan hoostaga xaafadda Beetlaaxiya sida warbixinta ay ku soo saareen guutada Al-Quds oo garabka Islaamic Jihad ka tirsan
howlgalkan ayaa lagu waramayaa in uu ahaa mid qorshaysan maadaama dagaalyahanadu ay meel aysan fariisanaynin kaga soo baxeen ciidanka Israa'iil halkaasina ay ku gubeen 7 ka mid ah gaadiidka dagaal ee ciidanka Israa'iil. waxaa sidoo kale soo baxaya in maanta gantaalo lagu weeraray magaalada Ashdod iyo magaalooyin kale oo gudaha Israa'iil ah iyadoo nidaamka difaaca hawada ee Israa'iilna mar qura uu isla qeyliyay guud ahaan magaalooyinka dhaca agagaarka marinka Gaza. telefishinka Al Jazeera wuxuu baahinayaa deegaanka Erez, deegaanka lagu magacaabo Netiv, Ashdod iyo magaalooyin kale oo gudaha Israa'iil ka tirsan in ay u badan tahay inay gantaalo ay ku dhaceen oo nidaam difaaciidka qaarkood ay ka baxsadeen waxaana seeriga digniinta laga maqlayaa guud ahaan magaalooyinkan. dhinaca kale agagaarka cisbitaalka Indonesia sidaynu idin kula wadaagna barnaamijkeenii duhurnimo agagaarihiisa gantaalo badan ayaa ku dhacay cisbitaalkan waxaa la sheegay in xaaladdu ay ka dartay oo ay u muuqanayso in halkaasi mar kale xasuuq uu ka dhacay. waxaa la arkaya sawirada iyo muuqaalada muujinaya dad badan oo cisbitaalka ka soo baxay maadaama halkaas ay deegaansadeen kuwa dhaawacyo ahaa oo mar kale gantaalada kusii dhaawacmay kuwaasoo cisbitaalka laga soo saarayo waxaana laga baqaya cisbitaalka inuu noqdo sidii cisbitaalka Al-Shifa oo kale sababtoo waxa lagu waramayaa maanta inay go'doomiyeen taangiyada dagaal ee ciidamada Israa'iil iyadoo agaarihiisana gantaalo ay ku dhacayaan. Israa'iiliintu waxay aaminsan yihiin in cisbitaalada lagu hayo ugu yaraan maxaabiis ay tuhmayaan inay gacanta ku hayaan dagaalyahanada iska caabinta. agaasinka guud ee cisbitaalka Indonesia waxa uu yiri shaqadu waxay u muuqanaysaa inay joogsanayso sababtoo ah waynu go'doonsanahay. maanta dagaalyahanada dhinaca koonfureed ee Lebanon ee Hezbollah waxay ku dhawaaqeen inay bartilmaameedsadeen xarunta dhexe ee taliska guutada 91aad oo ku sugnaa saldhigga lagu magacaabo Paranid. waxa ay sheegeen xaruntan inay ku garaaceen ilaa iyo 2 gantaal oo 2 jeer ayaa halkaas ay bartilmaameedsadeen qasaaro ayayna sheegeen inay gaarsiiyeen ciidamada Israa'iil oo ay gubeen gaadiid sidoo kalena askarta goob ay ku kulansanaayeen ayaa mid ka mid ah gantaalada la sheegay inuu ku dhacay. haddaba aan u soo dhaadhacno macluumaadka ku saabsan dagaalka waqooyiga marinka Gaza ka soconaya muxuu kaga duwanaan karayaa dagaalka dhaco dhanka koonfureed ee marinka Gaza. falanqeeyo dhanka militariga ah oo Israa'iil u dhashay oo Amos Harel lagu magacaabo wuxuu yiri Israa'iil inay guul ka soo hoyso marinka Gaza waa arrin aad u adag iyadoo dagaal adag oo faraha looga gubtay uu ka dhacay dhinaca waqooyi ee marinka Gaza oo dagaalyahanada Hamas qaarkood uu sheegay in waxyeello lagu gaarsiiyay haddana wuxuu leeyahay dagaal ka dhaca dhanka koonfureed ee marinka Gaza ayaa ka adkaan doona kan waqooyiga maadaama la tuhunsan yahay halkaas inay ku yaalaan gododada dagaalyahanada Hamas ay ku hayaan maxaabiista. Ra'iisul Wasaarihii hore Israa'iil waa tii shalay uu lahaa dagaalyahanada Hamas gododadooda waxay ku yaalaan Khan Younisna waxay ka tirsan tahay dhinaca koonfureed ee marinka Gaza inkastoo bartamaha ay u dhowdahay haddana waxa soo baxaya tuhunka ugu badan ee la qabo inuu yahay in halkaasi gododada tirada badan ay ku yaalaan. falanqeeyaha dhanka militariga oo wargeyska Haaretz oo Israa'iil ka soo bax la hadlay waxa maqaal uu qoray uu ku yiri dhaqaale ahaan iyo dadaalka badan ee Israa'iil ay bixisay si gododadaas ay u hesho waxa uu yiri jab xoogan ayuu Israa'iil soo gaarsiiyay kaas oo lamida wixii ku dhacay bilowgii 7 Oktoobar markii dagaalka adag ay ku qaadeen dagaalyahanada iska caabinta. sidaas oo kale qabiirka dhanka military Vice Al-Duwayri lagu magacaabo waxa uu yiri dhaqdhaqaaqa iska caabinta waa geesiyaal naftooda huraya wayna adag tahay in looga adkaado xaafadahooda ama guryahooda. waxaana uu bogaadiyay guulaha ay gaareen saacadihii ugu dambeeyay maadaama ay soo bandhigeen muuqaalada muujinaya iyaga oo askar badan dilaya gaadiid badan gubaya sidoo kalena gacanta ku dhigay qalab military. falanqeeyaha Israa'iil u dhashay wargeyska Haaretz la hadlay markaa wuxuu leeyahay waxa jira arrimo badan oo sabab u noqon karaya dagaalka waqooyiga ka socda hadda inuu ka xoog bato kan koonfureed. waxa uu leeyahay wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha ciidanka iyo wasiirro badan ayaa arrintan isku raacsan inkastoo Netanyahu uu ka aragti duwan yahay oo uu doonayo waqooyiga iyo bartamaha oo kaliya in la isku xiro. sidoo kale falanqeeyuhu wuxuu yiri wasiirka gaashaandhigga wuxuu aaminsan yahay in xaafadaha dhinaca galbeed ee marinka Gaza la qabsaday oo laga sifeeyay dagaalyahanada iska caabinta laakiin taasi ma aysan dhicin oo wali waxa muuqanaysa buu yiri awoodda dagaalyahanada iska caabinta maadaama askartooda iyaga oo lugaynaya ay gaadiidka qaar ay waxyaabaha qarxa gelinayaan gawaarida taangiyada kuwa qaarkood nooca Markeva loo yaqaan ee bartamaha magaalada ay ku gubeen. taasi marka waxay beeninaysaa buu yiri sheegashada ah in laga adkaaday dagaalyahanada iska caabinta lagana sifeeyay dhinaca waqooyi galbeed sida ay warbaahintooda baahinayso. maxaa sababaya marka dagaal ka dhaca koonfurta inuu ka xoog bato kan waqooyiga ka socda? sababtoo ah dadkii ugu badnaa ee ka barakacay dhinaca waqooyi ayaa hadda waxay ku sugan yihiin dhinaca koonfureed maadaama la yiri waa amni dhinaca koonfureed. dhinaca koonfureedna waa meesha ugu badan ee la tuhmayo inay ku yaalaan gododada dagaalyahanada Hamas.
malaha waa fariin ugu yaraan ah waxaad ku fashilanteen dhinaca waqooyi ee koonfurtana iska ilaaliya. waxaa kaloo carabku ku adkeeyey falanqeeyuhu haddii israa'iiliyiinta aysan dan ka lahayn dhibaataynta dadka shacabka sida horey u dhacdayba inay qaadi karayaan tallaabooyin kale oo lagu dhibaataynaya dadka shacabka ah ee ku nool dhinaca koonfureed ee marinka Gaza. Israa'iil waxa uu sheegay hal guul inay gaartay, guushaas oo ah Mareykanka inuu diiday xabajoojin in la gaaro, laakiin waxa uu yiri waxaa muhiim ah in la darso laba arrin. waa tan koowaad ee qorshayaasha carqaladeyn karaya ee doorsoomayaal lama filaan ah inay jiraan oo dagaalka ku soo biiri karaya, taas oo haddii dadka koonfurta ku nool mar kale la dhibaateeyo ay ka caroon karayaan kuna soo biiri karayaan dagaalka. tan labaadna wuxuu yiri waa inay Israa'iil darastaa xitaa taageerada Mareykanka ee hadda la siinayo inaysan weligeed sii socon doonin, oo ayaga kaligood looga baahan yahay inay isku tashadaan siday dagaalyahanada iska cabinta Falastiiniyiinta go'aanka isku tashiga intay u gaareen dagaal adag ay ku qaadeen Israa'iil. warbaahinta qaar Israa'iil waxay baahinaysaa dhinaca kale marka aan eegno ilaa iminka inaan heshiis rasmi laga gaarin arrimaha sii deynta maxaabiista, laakiin mararka qaarkii waa la isku soo dhawaanayaa. waxaa sidoo kale soo baxaya macluumaad ku saabsan 24 saac ee la soo dhaafay Israa'iil inay gantaalo ay ku dhacayeen xaafado dhowr ah oo ka tirsan deegaanada ku hareeraysan marinka Gaza. waxaa sidoo kale soo baxaya seeriga digniinta saacadii ugu dambeeyay in si weyn looga maqleeyo magaalooyinka waaweyn ee gudaha Israa'iil ilaa bartamaha. Xisbullah dhankooda waxay sheegeen inay sii wadaan duqeymaha ay ku bartilmaamaysanayaan ciidanka Israa'iil ee dhinaca xuduudda ku sugan, waxaana ugu dambeeyay gantaaladii ay ku garaaceen xarunta taliska dhexe ee guutada 91aad ee ciidamada Israa'iil. wax walba oo arrimahan ka soo kordha barnaamijyadeena kale ayaan kugula wadaagi doonaa insha Allah. nabadgelyo.